mudane abwaan cabdirashiid yuusuf jibriil wasiirka wasaaradda maaliyadda xasan shire cabdi wasiirka wasaaradda amniga cabdisamed maxamed gallan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare cabdilaahi maxamed xasan taliyaha guud ee ciidamada dowladda Puntland Janaal Yaasiin Cumar Dheere xildhibaan Cabdiraxmaan Jaabiri iyo dhammaan wufuudda uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha wakiilada waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib mudane gudoomiye mudanayaal ku soo dhawaada magaalada Ceelbu aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaa magaalada Ceelbu waxaan u malaynayaa indhihiina idin macallina reer Ceelbu taageerada iyo rabitaanka iyo soo dhaweynta ay ilaa saaka u taagnaayeen qoraxda u taagnaayeen inay dawladooda isgarab taagaan inay madaxdooda soo dhaweeyaan aad baan ugu mahadcelinaa bulshada kala duwan ee reer Ceelbu oo runtii ilaa saaka u taagnaa soo dhaweynta madaxdooda aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin halkan waa iska soo dhaweyn insha Allah hadii la yiraahdo wixii wara iyo insha Allah hadii la yiraahdo wixii shaqo aba waa u wada joogi doonaa aad iyo aad baa u mahadsantii mar labaad iyo mar saddexaadba